bandhig dhaqameed loogu yeeray Puntland Art Fair ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Bandhigan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo lagu dhigo gudaha Puntland. Waxaana lagu soo bandhigay sawirro aad u qurux badan oo ka turjumaya bilicda dalka oo ay qaadeen wariyayaal ka tirsan wariyaasha ka howlgala Puntland iyo farshaxaniistayaasha Puntland ku nool qaar ka mid ah. xafladda oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa dadka ka soo qayb galay ay si aad ah ugu riyaaqeen sawirrada quruxda badan ee ka turjumaya bilicda, xasiloonida, nabadda iyo dhaqanka deegaanka Puntland uu caanka ku yahay. Balqiisa Cabdirasaaq oo ah gabadha soo abaabushay barnaamijkan lagu soo bandhigayay farshaxanka iyo sawirrada aadka u quruxda badan ayaa ka hadashay waxa ku dhaliyay inay ka qayb qaadato fulinta barnaamijkan iyo sida uu u qabsoomi lahaa. runtii fikraddan waxay ahayd fikrad cabaar igu jirtay oo wax badan ka fekeray mar badan baan islahaa sawirrada badan ee walaalayaasha soo dhigayaan Facebooka ama Twitterka ama Instagramka maxay ugu sameyn waayeen inay soo gudbiyaan oo dadka u tusaan oo la daawado haddii xataa aan la gadanayn at least la daawado. dadka sawirrada qaado waxa ka badan dadka xiiseeya sawirrada. أنا waxaan ka mid ahay dadka xiiseeya sawirrada maqan saas darteed markaan fikradda la imaaday they appreciate it way ku farxeen mid kasta wuxuu dhahay waan u baahnaa inaan sameeyo laakiin waan baqayay. Gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland MAB Faysal Qariif Barre ayaa ku amaanay suxufiyiinta Puntland heegsiga ay ugu jiraan horumarinta nabadda, soo bandhigidda xasiloonida dadka, dalka iyo deegaanka. Waxa uu sheegay inay ku taageerayaan sidii horumar ay u gaari lahaayeen. waxa quruxda badan ee halkan ay soo bandhigeen wariyaasheeduna waxaan rajaynayaa inaanu dhigi doono meel wanaagsan oo waqtigeeda ay qaadanayso. Arintani waxay ina xasuusinaysaa oo kaliya sida wanaagsan inaynu uga faa'iideysano media. aad ayaan u mahad celinayaa ciddii soo abaabushay. sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa dadaalka ay wadaan warbaahinta Puntland oo dhinacyo badan isugu jira. wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska ee dawladda Puntland oo marti ku ahayd bandhigan ayaa sheegtay in wasaaradda iyo guud ahaan dawladduba ay garab taagan yihiin ka shaqaynta horumarinta bulshada iyo sidii hal abuurayaashu ay u soo bandhigi lahaayeen fikradahooda cusub si bulshada qaybaheeda kala duwan loogu baraarujiyo bilicda guud ahaan dalku u leeyahay. horumarka lagu sheegayna dhexdanadu ka bilaaban karaa ma aha qof kale intuu kor nooga yimaado oo ajaaniba inuu noo sheego quruxda iyo horumarka siduu isagu u arko. insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa runtii inaan laga baqanin in waqti la geliyo ka wasaarad ahaan runtii waxaan rajaynayaa qayb libax inaan ka qaadano barnaamijyada noocaana dhiirigelinta dhalinyarada. kadib markii xafladda ay soo gabagabowday ayaan aragtidooda weydiiyay sawir qaadayaasha iyo hal abuurka ku soo bandhigay sawirradooda iyo farshaxanka qurxoon bandhigan caawa lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. sababtan u soo bandhigan waxa way in maaragtay dadka iyaga Puntland ku nool ee Soomaaliyeed inaan fahansiino sawirrada macnaha ay leeyihiin inaan muujino awoodaan u leenahay inaan dalka ka gudbino fariin macna leh quruxda dalka sababtoo ah waa dareemi kartaa Google-ka hadaad ku qodid Soomaaliya sawirrada ku soo baxay inay yihiin sawirro maaragtay si kale loo turjumay marka dalkeena inuu qurux badan yahay oo dalalka kale uu kaga wanaagsan yahay dhanka maaragtay khayraadka ayaan ugu talagalnay inaan muujino dareenka dadka iyaga iyo deegaanka iyaga siduu yahay. kuwan waxa fikradda ka qaatay Soomaaliya iyo ma garanaysaa dhaqankeeda hidaha dhaqanka aan maanta waxa soo bandhigay sida u jeedaan gadaasheeda farshaxankii aniga gacantayda ku sameeyay haday noqoto sawiraad haday noqoto nashqad cusub oo la keeno haday noqoto dhar tulidii waxyaalo kala duwan marka waxa intaasna waxa ugu dal lahaa inaan tuso bulshada oo ku nool Puntland inaan xirfadan waxa la yiraahdo aysan ahayn wax dad kala leeyihiin laakiin ay tahay wax ummadda dhan wada sameeyay oo dadka badankood ay ku beeran tahay laakiin reer Puntland badankood ay ka cabsadaan ama ka xishoodaan inay soo bandhigaan. maanta taanaga geesnimo iska raadina isku tijaabinina horseed u noqono. hadda markaan u soo noqdo dhanka sawir qaadida iyo xirfadan waxa moodaa Soomaalidu sawir marka guud ahaan sawir laga hadlayo waxay ka qabtaa phobia ama cuqdad. kaamirada jidka soo qaadata Cabdiqani wadada marka soo istaagto warana sawirin baa lagu leeyahay
qof wuxuu ka baqayo ma taqaanid wuxuu diidayo ma taqaanid sanadada dambe moobiladan soo baxay iyo shaashadahan la taataabanayo waxay bedeshay nafsiyaddii shakhsiga Soomaaliyeed waxbay ka bedeshay waxa weeye dadkii baa aqbalay maxaa la yiraahdaa in wax laga duubo kadibna waxay isku bedeshay in la soo bandhigo dalka quruxdiisa magaalooyinka baadiyaha dadka ka soo qayb galay xafladda oo isugu jiray wariyayaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay wehelinayeen siyaasiyiin xilal hore ka soo qabtay dawladihii soo maray Puntland iyo dawladda hadda talada haysa ayaa guud ahaantoodu waxa ay aragtidooda ka dhiibteen sida ay u arkaan bandhigan oo ah kii ugu horeeyay oo noociisa oo lagu qabto gudaha Puntland sawirada aad buu wanaagsan yahay inta sawirada qaybta farshaxan baa ku jira runtii aad bay noo soo jiiteen sawirada qayb lagu qaaday kaamirooyin iyo qayb qalmaan lagu qaaday waxaan uga mahad celinaynaa wiilashii iyo gabdhihii sida hagar la'aanta hawshan u qabtay markii la helo dad wax sawira oo ay helaan taageero oo ay dadka ka helaan waxa la yiraahdo dhiirigelin waxa sii kordhinaysaa dadku quruxda iyo dalka iyo rajada ay ka qabaan marka ugu horeysa hamiga dadka kordhinaysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan aadka u quruxda badan oo dhalinyaradu ay ku soo bandhigayaan farshaxankooda iyo waxyaabaha xirfadahooda gaarka ah haddii noqoto dharka quruxda badan oo la tolo iyo waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka iyo sawirada quruxda badan oo runtii la qaaday عبد الغني بردعد Puntland TV Garowe